waxa kaloo waxa kaloo shaadin waxa rabaa Facebook yani dad badan oo jawaab ka soo bixiyo waxaan ku arkay dhahaya ilaa madhabka albeedka oo ka hirgalay yani Soomaaliya tusaale Soomaaliya waxay hagaagi mayso dawlad fiican ka dhalameeday leeyihiin waa yani dad kale su'aalo meesha ku soo qora way comment ka soo bixi marka ani waxaan isweydiiyay afarta madhab ma ahana yani madhab albeed ma jira oo yani mustaqil oo madax banaan masa afarta madhabta ku yihiin albeed ka horta madhabkooda inagu ma haysano waa garta afarta madhab albeed ma waa garta nabigana markuu dhimanayay xadiis Bukhari Muslim isku raacay wuxuu ka dardaarmay laba culus baa idinka tago kitaabka Ilaahay iyo albeedkiina inaad qabsataan waa garta hadii labada aad qabsataan la yiri ha albeedka soo qabsadana lama dhihin oo raacana lama dhihin ha waana la yiri حديث صحيح البخاري مسلم سعر ورماه ها هذه لبا معنى مid bay noqon leedahay labadaba min ahlu sunnah way ka tagtay waa gartay imaam yaa laga dhigto madaxweynayaal laga dhigto cid xil kale aysan qabanaysan shaaca qabta la yeelo waa gartay iyo in markii ijtihaadaadkii aimadu iskhilaafta madhabkooda ayaga fiqigooda ijtihaadkooda mujtahidkooda la raaco waa gartay shaafiiciyada kuma oran arbeedkan ku arbeedka macnaha ijtihaadkooda la raaco warso raacadu maxay tahay laba macno bay mid noqon ma ku waa gartay waa in ay kan madaxweynayaal laga dhigo ama markii ijtihaadka xilliga fuqahada la soo gaaray mujtahidiin bay lahaayeen madaahib leeyahay madhabkooda la raaco lagu xidhmo waa gartay madhabkoodina meena raacay oo mujtahidiintoodii inaguma jiraan jaatarka waa baadil baan anaga afarta madhab ka soo haray waa baadil baan dhahnay afarta madhabna ayaga kuma jiraan mana haystaanba haye imaamna kale dhigan oo madaxweyne noo meena noqon waa gartay away raacadi nabiga marka dad baadi oo nabiga ugu xidhay dad aan jirin inuu nabiga raacana lahaa hadii albeed ka jirin oo safar cami doon asoo imaam shaafici soo kamid ma ahayn albeedka ma wala gaar baysan yahay uu yahay laakiin wala khaasan yahay dadku raacay yiri si gaar ah u yiri waa faalmar soo faracay waa gartay albeedka asaga waa laga khaasan yahay ay marka albeedsa baa joogta asaga hadii nabiga ku soo dhawaaday loo asoo nabiga afar shan bay kala tirsadaan haye ku dhalay baa jooga albeedsan nabiga ku dhalay biyiisa waa gartay marka macna aad albeedku madhab kuwaas madhabtaas afarta ka madax banaan ama iyo kitaabo oo qoran mi leeyihiin dawladihii albeedka gumaadaysay cabaasiyiintii iyo umawiyiintii oo leenaysay oo katarabaan ka dhigtay waa laga kala cararay wixii ninka la hadlay ka wariya waan dili bay dawladii waa gartay muawiya soo jeediyay afar wareegto oo ninkii nin albeed xadiid ka wariya dimayso bari noqotay hal ugu toogto barta lagu arko waa gartay markaas ay diintii baa laga kala cararay markaas ay madaahibtan damcaan inay marka diinta oleeyaan oo bal ayaga lagu soo xidhmo marka xusbay ku jireen albeedku waa la cayriyay waa la dilay rag nabiga ula daarmay baa ya gacan gobol laga dhigay macaqli baa waa gartay ya haashaan waa ku fahmay marka hadii la dhaho afarta madhab waxaan ahayn waa baadil di rag nabiga taskiiyay baa waa baadil ayaa soo bixi mid kale afarta madhab nabiga ma taskiinin moogtay hebel la raayo laakiin ayaga raaca buu waa gartay ayaga raaca laga taskiyada haystayna maxaa baadil ka dhigay kiya taskiyada haystayna adoo waxa ka taagnaadeen sax ka dhigay ma sha Allah ee ما أنا نبي التسكير اللي كان هذا العذاب هو مثلا نبي أربع بروحها ما أنت مسكتم لن تضلوا بعدي يقولي كذا شيء مرة مثلا ضيق كل كتاب waa gartay marka hadda afarta mid nabi inuu kani hatta raacay dhumi meesha uu ku yiri asaga ma dhunsan yahay horta maya hadii nin raac buu nabi ku yiri amar buu nabi ku siiyay Soomaa waa nabi amar uu nagu siiyay hadda tusaalaan aniga hadii nin albeed hadda wado shaqo yahay oo aan cilmi ilaahay iga baro oo cilmi aan ka xambaaro waxaan u sheegaa Soomaa waxaan aan cilmiga ka soo xambaaray oo hadaan qorana waxaan sii gudbaa moota wixii albeedka aan ka keeno waaye marka مثلا انا كذا دحين كذا دحين سو qaabka raacidii warish ay sheegayso ku saabsan xabiibi haye horta waxa mujtahidka lagu raacaa waa masaa'il aysan quraanka iyo xadiidku toos u cadeeyeen ama fiqhigoodii fasirintoodii weey waa gartay wax quraanka uu toos u cadeeyay ama xadiidku toos u cadeeyay wax imaam iyo wax mujtahid oo ku raacay ma jiro waa gartay ma garan waa fahmi marka masaa'il horta ijtihaadaadku way iska yar yihiin ba haye quraankan iyo diinta waxa yadii culimada ijtihaadiyaan ilaahay diin soo dajiyay diinta waxbay cadeysay iyo culimada ijtihaad la raac maxay tahay ilaahay
qaanuun iyo dastuur buu noo dejiyo nabina uu noo soo diray kitaabna uu soo dejiyay diinta muhiimkeeda kuwaas cadeey ها marka dadkii waxa laga dhigay waa diinta dhammaan ijtihaad ku socoto culimada ayaa loo keesiba ها معناه اجتهادك وحي كتابك السنة يعني مركز أنكو عدين أو كو قرصون أو علماء اسكو بيانا اسكو خلافان هيك وكا تاس أو كلا اجتهادات كيسا ويدي قفت اجتهاد كيسا مرده اجتهاد كما بورين كرتدي وأنا بدي قلت يا صحن إنك لا اجتهاد كما بورين قبنا اجتهاد ما صمر بورين كرانيك هذا حتى سكلا مرة حتى بيخلطين بدي كرتدي واقرت واكو فهمي وهذا كو فهمي marka nimankan waxa ii sheegtay sheekhi غير laksi nimanka shiicada tusaalaan inkastoo ay kuna hadda iskhilaafsan yihiin iyagu marka madhabka ay ku taagan yihiin ma madhabkaas oo alubeedka maswa qaafki ku socdaan ayka madhabkii alubeedka oo sax ah oo hal xaq ah oo ninka raacdana uu ku geliyo horta qabsadeen waa gartay laakiin bimujarrad way ka gareerayaan hadaa tiraahdo madhabka ku socoto waa baadil way ka gareerayaan ninkii diinta yaqaan way ka gareerayaan waa gartay waxaad ku darteen in la dhahaa mooyee madhabka alubeedka raacday waa baadil baa tahay adiga gareeri لكن هذا ترى هذا من يبغى البيت محور على البيت ما ودي عيش انت كليه انت والو خلطين لو دهو اي انت كلا ريبن اميان دمو تابعين تو بدن يا معاويه البيت دبين هذا كبر نقدين way ku saxayeen هي واقرت انغا dhahaynaba kullu saxaab wixii nabiga la kulmay dhaw wada khayr oo adeena waa baadil ayadana واقرت oo ayaga iyo inaga waxay noo dhaxay tafriid iyo ifraad wax la yiraahdo واقرت سؤال يا روعه ودين ku fahantaa ku tusi tafriid ayagu xaq tafriid waxa la ka gaabin qofka oo darajadii uu mudnaa ka gaabiso oo gaarsiinin waa garad midalan qad qudubi waa nin caalim ah cilmi baan baa waxa tiri adag ka xsan darteed aqoon ma laha haye waxaan baad ka qaadatay marka waa khalad waad ka gaabisay darajadii uu lahaa uu gaarsiin aqoon ahaan iyo miisaanan ma dejin waa tafriid bal dhaha waa xad gudub oo xaqiisi aadan booski uu mudnaa aadan geeno ka soo maris waa garad ifraadna waxa la dhahaa adiga ku xad gudbo meel san gaarsiin oo waa kan oo balay waa nabi meel fog gaarsiiya ifraadna la ku xad gud waa garad يعني إفراط من حد قدوم صحابته كحد قدوم نادر كل هالجنة وإحنا بيلاكم جدي ووحوا يجتهد وضع خير وحمان سمي مجرى هو يعني حيداك واضح إنه يجي أوضح فوقينين واقرت وضع فوقين تانا وخلط أيه مثال يربان كتوس إنه خلط تاع واقرت صحابة المهاجرين يا أنصار يا رجل النبي الله كل ما يهجروا ذي قرآن كأمانة لكن رك فضح ما كقدم بإسلام ما تقول شرط وكحنا أيه شرط waxaa lagu xiray inay saabiqiinta raacaan oo ku xinaadaan muhaajiriin ansaar oo san la diriirin oo xilka iyo diinta uga dambeeyaan quraan ku xiray haye maadaama qasab lagu qabto iimaan ayna ku islaamin iyo diin ay rabaan aysan iimaanin intii laga xoog badiyo in asoo daxbad riidi uu la qabtay ilaa diintaada iyo fikirkaada kuma qancin waa xoog badisay waa garad waawi rag marka noocaas ayaan fadx marka qasab lagu qabtay haye rag soo islaamo soo hijroodo oo diinta islaamka jacaylkooda intuu qalbiga soo galay soo yimid oo toobadkeen ama ahayn haye ninkii nooca ah oo qasab lagu qabtay asoo dagaalamay seefta riidi uu dhakab la siiyay wax marka ma islaamin horta uu isdhiibay waa garad kuma qancin diinta kuma qanacsan marka koobaad haye kadib markuu diinta islaamka ku dhex jiro muddo fog uu joogo saxaabtii la noolaada hadduu dib diinta kaga soo duxo iimaanka u macaanaado dib ka fiicnaadana waa nin fiican waa garad hadduu dib wixii kaga soo dixi waayana dhaqankiisii la arkay inuu gaalimada iska wato islaamkii awoodun ka cabsanayana islaamkiisii horena waxba kama jirin uu isdiibay uu cabsaday waa garad fadx marka waxaan lagu qabtay marka horta islaamnimadkoodu saasi intooda badan waxba uga jirin oo way isdiibeen oo way islaameen iimaan qalbigooda ma gelin iimaan waxa la rumayn Allah iyo rasuul rumeeyay islaamina waa isdiibid oo xukunka guud islaamka la isku dhiibo waa garad waayo Abdullah ibn Salawala uu islaam buu haabal dhahay oo fa aslama Abdullah ibn Salawala Bukhari warta uu islaamay macnaha xukumkii isdiibid baa islaamkan oo salaadii soomkii iyo isdiibay xagga zaahiraan iimaankii gudaha ana nabiga ma rumaysnay ibn Salawala waa garad إيمان الإسلام وكلام القرآن إلهي وحكي لصحابته واجا إسلام أنت ولا بدن قالت الأعراب آمنا ربادي وحدين إلهي بن رمينا هي وأمرك ما كان لقب صدي موقتها يسنين ربادية شو دم وفاجنا فاجنا كل مادين هي قالت الأعراب آمنا قل لنا لم تؤمنوا من الرمين ولكن قولوا ده أسلمنا وان إسلامنا ده ولما يدخل الإيمان في قلوبهم قلبي والإيمان مجرين واقرت إيمان الإسلام مرتبه كلا القرآن كبعضيني marka qofka haduu islaamay ka badin inuu muslim saxaabi fiican yahay duun iimaan qalbigiisa galin waa garad
raggii marka nooca ahaa ee Fatx Maka ku islaamay quraanka wuxuu ku xidhay inay saabiqiinta raacaan Muawiya raggaas ka mid yahay waa gartay حتى ما بتوحيسني سو موجود ايوا لaba koon inuu nabigu taxabsi ku ururiyay wuu maxaad iga malaysanaysaan anta akhun kariim wa ibn akhin kariim walaalkana wanaagsan baatay walaalkana wanaagsan uu ku dhalay bay dhaheen idaa bu faantum mudula qaab uu wada fasaxay arday socda ayuu tawxiisani bayo gaalaan buu cafis u fidiyay inuu sameeyay waa gartay horta Muawiya adoon buu hal xoriyay xilba ma qaban karan in adoon soo moog waa gartay malaay tamida waa gartay in adoon moogtay in adoon ma ka warqabtay ka warqabtay warkama hay adoon maxaa la yiraahdaa nin gaal oo soo dagaalamay diin islaamka la qabtay oo soo adoon ma adoon kaas la yiraahdaa marka Muawiya marka adoon meel lagu qabsaday masa dadkii meesha inta lagu qabsaday nabi iska daayo ka bacd iska islaam oo noqdo diinta maxay tahay diintu gaalada soo in la daayo diinta ma ogolo soo gaalka markii la qabto soorta adoon ma markii la qabto islaamka gacanta ku dhigo marka ku xubeysa aad qabato soo adoon ma marka nabigu waa qabtay iska daayay tawxiidku lama qaban miya afar xukun baa ka banaan markii gaalka asagoo xabada rido in ku islaamin oo ku rumaynin aad ku xubeyso qabato afar xukun baa ka banaan sharci islaamka aad ku furiso quraanku sheegay فإما من بعد وإما فدان إن يعني أدفرته inaad furato xoolo ku furato tiraado xoolahan keen oo iska tag diinta gadaabta gaal ah ama islaamka yar baad leedahay horta laakiin xoolo iska sii badal oo kale rag la qabtay waa gartay illa man naystoro xoolana laga qaadi maayo lagu mana adoonsanayo waan ku fasaxay oo iska tag sidii koon la yeelo oo kale waa gartay in la dilo waa gartay in la adoonsado waa gartay afartaas horta ka banaan afartu sharci uu baneeyay marka nabiga mid kamid u maray oo in almanu daas u maray هاي marka wala adoonsan kari anta alabd wali kara qanimada la qiimeeyo waa lagu dari karay waa gartay horta qof noocaasa waa gartay kolku rasuulku uu sida yiri u qabtay oo nool lameeyna tawxiidsanin waa gartay idhabu taga fa antum adulaqa wa habsiga waa idin ka furay ordada waa idin cafiyay idinko gaala ayo gaala ma habsiga ka dareereen waa gartay وأكيد دجالة كده من فتح مكان مؤلف القلوب تاعي بقول كذا سجى أبيه ويدي لسيني واقر نيك هرت من حوتوي الإسلام إنه معمول الدولة وأنا كمؤلف القلوب دي إيمان كذي حول وصل ضمني واقر حلو جسد أو بكرة سجى أبيه قال لي في الدنيا بين هلا في الدنيا دي تلاقى بحماك كي يستاجي واقر وتاسع عدين إيمان كورون مسنجرين إيه أنت وحسيت إيه ركول القرآن كل حكوا حريق جيسو إيه والسابقون الأولون سورة التوبة والسابقون سابقين الأولون خريق من المهاجرين والأنصار أتوا مهاجر ما مركا أنصارنا معها والسابق ليه يا معنا أسار ما مهاجرين ما هين هذا أنصار رجل مدينة لو قلت قبيل كان بالدار أنصار المبنى وقيلة أو سي خزر وقايب سنة هذا قيلة هذا شيء مهاجرين وإحنا مكان يجري بالعيد مكان لا قبصين ما يجري يجري لا قبصين مهاجر ولا مرة أصلا ما كسابقين تاسو قلة يا سابقين تاسو كجرا ميا كم جرى سابق دوية محاولون مع ما هيسان لين بسابقين دي ليه معنا وار مال رأسي مركا حوا سو قيبتو كجرا دوسن بنقوصة ولا يريس آيات هيه لا هجرة بعد الفتح والنبي لما كان ترفتك بعد هجرة المهاجر من أول الإسلام واقرت والسابقون سابقين في الأولون هراء أو يجين من المهاجرين والأنصار سابقين الوشي والمهاجرين أنصار بلا قرآن فيه واقرت سابقين الوشي والمهاجرين أنصار بالكلام واقرت وحي فتح مكان قدم بمركة كمية جيران المهاجرين نما أنصار نما سابق نما واقرت والسابق وحال أنك دين هراء والإسلامي وصل قيب الله وهراء وكون كوال إسلامي واقرت نيجي دي فتح مكان الإسلامي دي نبي فتح مكان اللي بصروا وراي والله حد دبك على سابق معه واقرت والسابقون الأولون ومن المهاجرين والأنصار من تبياني ونحو المهاجرين شهر والسابقين أنصار كوبا أيه والذين اتبعوهم بإحسان تسوسوا بالله والذين اتبعوهم بإحسان كل يعني إحسان كل راعي كويس هذين الراعي مرة عندي ولد الرواق علي ولد السابقين وإذن راعي ما سوق قل واقرت marka horta waxaan ka wadaa in quraanku taabicu ku xidhay taabici way inuu raaco quraanku xidhay xilba inuu ku qabsado khalad baan ku leeyahay quraanku ka diidayo waa garta quraanku taabicu ka dhigay taabicin buu yaqaan afka kadib wixii islaam haye walladina tabacuuhum ayaga hum ta muhaajiriin ansar ku dhacaysa ku raacay haye bi ihsaanina ku raacay radiyallahu anhu wa radu anhu wa khalid ilahiya haye
ansaar iyo wixii ayaga ku xidhnaada wixii fatmo kadib islaamiga ayaga raaca inta ilaahay raalli uu ka yahay baa waa garad hadii ninka raacinta shardiga ma soo gelin waa garad asaga muhaajiriin oo dhan buu diraysa go'aan dhan buu diray nin saari in muhaajiriin ansaari lama soconin dagaalkiisa waa garad taabiciin u badnaay saxaabina istirtay mooliyano saxaaba isma direerin haye waa taabiciin nin saxaabi kuma jiro kuwan qolada Muawiya wata nin saxaabi kuma jiro oo nabiga arkay haye oo taabiciin waa garad suuratul anfaal ilaahay wuxuu ku yiri aayad kale والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في الأموال وأنفسهم في سبيل الله والمقتل ومهاجرين في هجرتي والنفط يمال بدين الإسلام هو هجرتي واقرت أيضا قيتها المهاجرين بيكون أمانتي والذين آووا ونصروا يكون سودوا ويو أنصارا واقرت أولئك بعضهم أولياء بعض أيضا بس معمول بحلك أنك لما قبل كرو واقرت ما النقل ها ayaga ismaamul xilka ninka loo qaban karo muhaajiriin ansar oo nool ay inta iyagu nool yihiin macna waa garta wallahi satartum salaamada waa garta fatxu makka wixii ka dambeeyo islaamay ee shardi uu ilaahay ku xiraya ninka muhaajiriin ku xirnaado u duceeyay muhaajiriin bal wuxuu samartii ansar ha ayadii horena walina tabaruun bay tirtana waxay walina jaaw min ba'd yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa tahyan quraanka tasaas uu leeyahay hadana marka quraanka sida uu yiri guud ahaan quraankan amaan loogu haynin ha suuratu fath ilaahi wuxuu yiri laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yu'ayyi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim waa gart bay'at ridwan ragi nabiga kula galay geeda hoose kulama waayuunay ilaahi raalli uu ka noqday waa gart kumu jiro asagoo bay'at ridwan xilliga ay dhacday sanadkii lixaad bay dhacday laba sano ka bacdi ama kala furan doona asaga xub loo qabsan doona waa gart ragi geeda nabiga kulama waayuunay baa leeyahay ninka geedan kulama waayuunay kuma jiro amaan noqon mayso ninkii dartii loolama waxa maka inuu nabiga gala u diiday asaga Abu Sufyaan iyo wiilkiisa Muawiya ahaayeen oo gaala u diiday inuu maka galo amraysto waa gart nabiga saxaabti marka balayay ballan isla galinay dagaalamaan dhintaan marka ragi dartood daabarta loo galay waxa uu leeyahay kuwi loo galay amaan bay wada taayad lagu dhigay إلهي وحولي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة جيد وصيك ورم ويعود نيا قرم ويعود جيد وصيك مجرد شرطي بكحر إلهي واقرت قرآن كيبها للغنجباري وميلا ميشتين لقليا واقرت إلهي وحولي جيدا كوي قرم ويعود كيان قرم ويعود مكجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة يكجرت أي خاص كتامية عيد آلير نيا مركا كجرين وإسلام باهين ومركا قال ما أيضا أمانة سلدي هي حاجة نرجو آخر زمن كي أنا بقول دماني قصب الوقت حتى راجع سواء إسلامي ودين تخيار بسوق ليه وكلا مرة نيجي قصب الوقت واقرت هذا من دين تقول أنا أصير أمان لو وين إنه عيرها صحت أماني أصير صحت كل شيء ها حديث هذا ما لو هيا هذا أنا سؤال يعني سؤالنا أمان ما لو هيا حديث واقرت بخاري مسلم ابن حجر العسقلاني wuxuu soo guulay fadari aayimada rasuulka inta soo qaatay wuxuu yiri hal man qabo inuu xudu ku amaanay Muawiya loo mahay waa gart marka quraanka loo waayay xadiis rasuulkana waa loo waayay waa gart hadii amaan iyo wanaag looga waayay diinta isku soo duubo hadaba dambiye iyo cayma loo hayaaba hadan la fiirin waa gart ma garata qofka miisaanka waxa laga fiiriyaa mugtay meelaha fog haye hadii quraanka amaanay la waayay xadiisku amaanay la waayay amaan ma loo hayaa ee cayma loo hayaa iyo dunuub wasaw galay marka waa gart kumaan bay noqotay marka waa soo dhoobay waa gart waa ii sheego macnaha waa iga bilaawo koodi marka uu reedo hay intaan ku bilaabo waxa rabaa macnaha kadib miisaanka wax loo qofka loo baaro taariikhdiisa ka hor iyo marka hore uu sheegay ku baraya waa gart markii kumaan la soo dhigay marka qofkii markii loo hayay xumaan mooyeen samaan loo waayay soo ku fiicnaada marka waa gart miisaankiisiba dhibcihiisiba in dambi mooyeen wanaag loo waayo waa gart markaas qofkii qof fiican kula noqon maayo haye Aliya rasuulna ma amaanin waa gart waliba xadiitu nabiga kufrigiisa ku fadwooday in diinta islaamka ku dhiman doono soo gaalka aba la hayaa waa gart oo ka horta waxa ka aba xadiitan waa Abu Hurayra qaranaya xadiid badan jirto la qariyo la cabsaday waa gart muslimka wuxuu qorayaa حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله النبي أسماء مقعية المنافقين تكسرست. واقرت.
inuu yiri ninkan raggu nabiga sheegay Muawiya kamid muslimka qoray miya muslimka qoray waan ka tus waa gar maxaa dhiman waa gar waxa kaloo saxiix muslimku qoraya nabiga inuu yiri ali la yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiqun waxaan mu'minayn kuma jeclaado waxa munaafiqiin kuma naco waa gar علي بكون بنت إلى أو كجيري ولا ده ويلكيس وكل الدار كلك إلى وعلي فرعي ولا ما يسترو عندك كلمة واقرت هدي أبو سعيد الخدري وحوري تلميذ كنا نعرف المنافقين ببغضهم علي بن أبي طالب نبع علي بن أبي طالب المنافقين في كرنج في بولي واقرت ما كنا بنورا هي أنت وحسيب التلميذ وحقوره يا النبي أسوأ ريبا وما ينعب بنتي وكل أنت نوع واقرت هذا النبي محمد بان نوعه كل انتبه له هيبن وما هذا حتى والنعمه انا بدعه تعالوا النبي محمد مركب بدعوها ميه هذا حديث النبي اللي شقيسين النبي واراد الشيخيده بالراعي فكر الشيخيه الراعي النبي محمد بالراعي marka hadda yani culimada intay soo maateen inta dadku wadeynaysa ama yani meel kasta joogeen ama Ethiopia kula joogeen ama yani caalamka daafihiisa waxa danta ka munaaqashooteen ama salaan isku faanteen culimada waaweyn ma jiraan وجرها واقرت taas oo nin baan ka doonay Nairobi meel markaan joognay mar waxa Nairobi waxa macnaha mar inaan isku dhacdeen wadaadada tualifko xogaa iskhilaaf dhex maray marka kuwa makiinaan sheekaysanay aan tusay wadaadki Sheikh Abdul Nuur ya Sheikh Abdul Nuur iyo Sheikh Maxamuud gibtigood waa Bukhari Muslim ka wada tusay واقرت وانا aragnay waan ku duceynay laakiin shibdhahood inta ku dabaydeen واقرت bil damban joogay meesha xajka iga soo bixiyeen markii dambe kan xajka su'aalo lacag xajka iga bixiyeen haye hada nin koox hada ma jiro maxay geedaa wada hayaan waxay wada ogyihiin dhamaantood xirtay ka kala tidin waji baa la ilaasanay ma waji wax ku falaano ali rasuul baan yaan waji wada ilaalin واقرت waxa lagu dhihi laba xadiis iswaafajiyaan ku iri culimada qaarkood aan la sheekaystay haye hadaa tiraadaan safkan ali safkan muawiya waa wada ahlu janno oo laba dhinacba waa ahlu janno idal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar namil geeya sagan واقرت la muslim haday istiraan kii wax dilay kii la dilay labadu waa ahlu naar haye labadan qolo midun baa ahlu naar aan ku midun baa khaldan midun baa dambiilay ma wada saxna واقرت labana istirtay mid baa khaldan midna ma khaldan macaqliba واقرت حديثكاس marka culimadu macnaha ayaan asxaabta nabiga waa ka reebaan hadii diinta asxaabta ka reebtay maxay inta saxiiban argashay waxayna yani asxaabta ay ku ijtihaad u dagaalamayeen oo ninkasta taawiil sax oo watay dhahan اجتهادك يا لمحويه عمار قوه خلدان با دلي دونتا لا يري ما اجتهادين هدوس اجتهادي كما سو قاد نسكن ماشي يا لحقو كمر معاوي ماشي تاغن با اجتهاد حقو كيمادا بنت لو شكاي مصدر احنا العلماء انا ودي لا اجتهاد في موجود نص ميلو كسو اروري اجتهاد كمان فرا مصدر حقو طال واقرت هدوس marka hore اجتهاد ka soo qaaday markuu madaxweynaha noqday xilkii la wareego cali bintu asoo sharqan oo magriban amiir aam oo noqday علي صوبتي وكل دري رجع عثمان دلي على يسوق عنقليه محو دلي واد واقرت من مون دلي حلب ودا ديب ايه رجع عثمان لو تومي دون قدي قدوميال غبل برصافيو كدي ايه علي وحي تاغيرسanaana wuu laayay 8 saxaabiba wuxuu ku dilay cali lacanada khudbada jamaacada lagu lacanada adiidaysan daayay mal dhigaysan karay dhaga faraagashayna 8 ba dilay 7 markuu toogtay uu kii 8aad soo nool buu qabri galay yes tama ijtihaada ماي هذا صنع عليهن علي ود انت حل بعد كما يستطيع اسمع مدحوينه حتى معارض احسن حتى بجري واقرت asxaabtan la leeyahay ayagu asxaab maamiya dhiigo maxaad ka dhigay asna wuxuu sameeyaa waa diinta inuu ka daawan yahay keeroon waxba qabanaynin oo ma yaqto mutaamida fajaa janaba asay ma qabanaysa miya yaa ka soo reebtay gaangistarka واقرت sideed saxaabi la dilay xijir min adi abdulrahman hasan al-azi noloshu ku xabaal abdulrahman hasan soo nool buu qabri geliyo xataa qadaf uu sangasin واقرت ها حتى تقول لا ها
واقرت marka ma ijtihaad baa علي من نور حل اسمه يستدقاك الدماء انت كل عثمان بن الله كل علي تاجر سنه جعلك علي بس ما اقول لك هذول نع علي بن ابي طالب ماشي وسو كجيرين او منافق وصناين لا يحب كلام ولا يبغض كلام منافق وصناين ونع علي قلبي اسكو ارك واقرت اصحابك الرادي صحابي اللي حجر من عدي يا خزاعمي يا عبد الرحمن حسن العزي صاحبت اللي قلت لي صحابي عبد الرحمن بن خالد بن وليد أصحابت أفرت الصحابي نلاش كدو حاليران وعيالكوا afar ma aan horta sideed bus sideed maalin geli haye mid kamid uu nolosha ku xabaalay waa gart todobada kalena inta kulka gooyay qabri ku tuuray waa gart laba saddex dambiga marka meesha yaala haye kow naftan mu'minada ama xal lagu dilo dambigay gashay waa gart laba dambigay gashay ma Ali bin Abi Talib lacnadii soo diideen ba afkaan oo kala canaday ma xataa dawladda joojisa ma afkaan oo kala canaday ma inay daaya idinku lacnaday waa gart saddex saxaabigan asagoo nool xalaalahay muxuu yahay isagoo nool nafi ku jirto waa gart hada waxa dambiga masoo nool xalaalahay inta qabta may hada dambigu galay ma Ali ma lacnadaya waa gart يا واكو فاهم شيخ horta محمد بن ابو بكر الصديق انا اثناء انتو لاجل علي جعيل سكو دلي ودمر كم يدي ودمر تو كلا دي حميدكيس ودحغلي ugu go'as igu soo celi qadka xawa go'ay محمد بن ابي بكر الصديق waa gart qadka xogaa naga go'ay xumaha marwaqa انا ابو بكر الصديق لان قولي محمد محمد بن ابي بكر الصديق waa gart asagoo nool markuu dilay ayuu dameer soo qaaday meeyda uu kala jahay uu dhaxgeli ku dhaxgubay waa gart sida Aisha u soo diray orgiba intuu salay asna orgiyo salay aan la karin hilibkiisa salay si Aisha hadiyada u soo diray walaalka ka go'ay waa gart orgiyo salay si walaalka Maxamed Aisha isaasan hilibkiisa u gooyay buu intuu orgi salo Aisha u soo diray haye وين نذرته إلهي بيكون أعرف إلي بدم صلي عايشين يسمعوني ما دام وراك نوع اللوجو جركيس واقرت إلهي كلمة هيلي بصلي عايش أكثر من طبعا رضي الله عنها واقرت مركا خمرة وفودي جري نا كريستان وكبي إمارة هاي تريح إذا بوليسكا وحكدي كريستان الدنيا تلك حمسة وحكدي كريستان سام وكجن عشان جري الخمرة وكجن عشان جري وعره مرجوي ويدا أبغى يبقى كله يسأل شيء إمام حسن البصري وحجر تري وينه أفر دمبي أو معاوية كذا حدوسا وذا جري لهنا ميت كريه جل تاسا نارو في الله يدور واقرت كو وحكي دمبي كو عري والله بالريب والنار كل وعي هذا مجرو واقرت وحسن البصري ايه ماشي قالوا نار ويبور واقرت laba wiilkiisa oo xilka ugu dhibay saxaabto dhan joogto wiil taabici oo khamrada aad u cabo kufri ah inuu xilka ugu dhibay muslimiinta islaam baahayno gaal واقرت saddex inuu laayay xijri min cadi sideedan saxaabi uu toogtay cali laanada bas uu ku laanay wali wuxuu yiri diinta cali alla uu ka caabin jiray kabir noqda واقرت diinta cali aaya waa diinta cali adigu واقرت afar inuu Ziyad bin Abi Nashar mutaaba dhashay oo Sumayya la oran jiray oo caalam baa guriga ka sunan jiray oo nin walba uu ku garanaya caalamkii sharmuutada inay tahay inuu isku gashan jiray bahalka yaa dhalay markaas wuxuu yiri inuu fasaxabay intuu arkay uu dhaafay baa ku dhalay Sufyaan baa wayda cilmi kaga dhalay aan walaalkii tahay ninkii dhaha walaal midii gudoomiyaha Ciraaq oo dhigay carabka ka jar واقرت وانا حسين يا حسن كدري دونا مره ضمان واقرت نبينا وحوري الولد اللي فراش وري العاهر الحجر وشرموت كان ريح بالو دلي المينا نيجي ناس قريب الله هليشين يا المينا قادم النبي يجري ولا حسن البصري معاويه وكل وين حديث كاس النبي وكدي واقرت دين النبي قاشان قدر وريب ايه توس بو بدله ايه waxaa kaloo taala inta diin ay wahaabiyeen waa haysta asaga bilaabay soo diinta neeco ma aha soo diin kale واقرت marka waxaan ku weydiiyay
axaadiista oo yaziid iyo mucaawiya iyo raggaas ay ku jiraan hadda maxaa lagu sameynaa hadii ma jirto xadiid ayaga amaanaysa lama hayo maya xadiis ay ku ay wariyaan